halkan waxaa lagaga doodayaa xal u helidda dhibaato haweenka muddo dheer soo haysatay. waxa qayb ka ah hablaha aqoon-yahan ah oo dhalinyaro ah oo u ololeeya in la sameeyo xeer caadadan lagu xakameeyo. ubax waxa warwar ku haya mustaqbalka gabdhaha yaryar ee soo koraya maadaama iyadu ay dhibkan hore u soo martay. inan kasta oo ku nool wadankeena Somaliland boqolkiiba 98 way og yihiin dhibaatada gudniinku leeyahay. anigu hablahaasan kamid ahaa waan xasuustaa dhibaatooyinkayga soo gaaray anigoo yar markii la guday oo ilaa maanta aan dhibaatadii aan kala kulmay ay caqabad igu tahay. markan arko habla yaryar oo nuunayaala oo waxba ogeyn oo bilaa dambiilayaala oo wadooyinka maraya ama aan anigu la dhashay oo arko in gudniin loo diyaarinayo waan ooyaa oo waan murugooda waayo waan ogahay sida ay u saameynayso noloshooda. muddo dheer ayay hay'aduhu wadeen wacyigelin welise gudniinkii uu socdaa. daraasaday magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ka samaysay hay'adda Plan International ayaa waxaa lagu sheegay in COVID-19 muddadii lagu jiray uu gudniinku gaadhay heerkii ugu sarreysay. siiba xilligii dugsiyada la fasaxay ayaa noqday fursadda lagu gudi karo gabdho yaryar oo badan. farduus waa garyaqaanad waxaana ay aaminsan tahay in sida kaliya lagu xakameyn karaa ay tahay in la sameeyo xeer qabta dadka ku shaqaysta iyo waalidka ku fuliya ilmaha caadadan. sharciba meesha kama jiro waxay ka dhigan tahay waa wax caadi oo normal oo dadku dhaqan ay iska leeyihiin oo ku faafay bulshada oo dawladuna u arkeen wax dambiya bulshadina aanay u arkeen wax dambiya. marka hadii sharci loo sameeyo sharcigaasi wuxuu criminalize gareynaya amba dambi ka dhigaya falkaas uu ka dhigi lahaa sida caadigaana adduunka oo dhan way leeyihiin FGM policy amba FGM law. markaas aan waxaan aaminsanahay hadii sharciga la sameyn lahaa inay dhabta yaraan lahayd dadka ku dhiirada amba ku shaqaystana ay joojin lahaayeen hablo badanna ka badbaadi lahaayeen dhiigbax iyo cudurrada ku dhacaya markay weynaadaan laftirkooda.